sheekh maxamuud maxamed shibli kelimadaas qayimka ah ee aan dareemaya ardayda badankoodu in ay fahmeen su-aalo badanoo halkan ku soo dhacayna aad uga jawaabtay sida wareegga dhulka iyo qoraxda iyo wuxuu sayniska iyo diintu ka qabaan. dhowr su-aalood oo kooban ayaan wakhtiga inta ka dhiman ku soo gabagabaynaynaa. haddaan ka bilaabo su-aasha koowaad, sheekhana saa'ilka ardaygan wuxuu leeyahay inshaaga la qoro ama maadada luqadda ingiriiska ama sawaaxiliga ah qaybta inshaaga ah haddii aan ku qoro sheeko been ah anoo ku raadsanayo calaamado ma dembi baa la iiga qorayaa? alxamdulilah maya. haddii aadan adigu wax dembi a qorin, sheeko been markaad qorayso inaad dad sheeko ka aliftood caydo ama waxyaabo jiray ka been sheegtay iyo sheeko luqad lagu samaynaya in la alifo oo dood dad dhex maraysa laga soo qaadayana waa kala laba. sheeko beenoon dad gaarana taabanaynin, xog beenoo kalena aan bixinaynin. culimmada muslimiintu taariikh dheer bay u leeyihiin. kutubta luqada marka la baranayo adabka qayb maqaamaad la yidhahdaa jirta, maqaamaat ulxariiri, maqaamaat siyuuti iyo kuwa lamidka ah. maqaamaat ulxariiri labada nin ee wada hadlaysaay ninka ay wada hadlayaane uu qoraya saasaan iri, saasuu yiri, saasaan iri, saasuu yiri, tii jira maaha. luqadda naxwada marka la baranayo qaama zaydun wa daraba zaydun camran wax la garaacay ma jirto. zayd camar garaacay ma jiro. ee waxaa luqadaa lagu baranayaa say kelmaduhu isu qabanayaan saa haddii la dhaho. saa haddii la dhaha ka soo qaad wey, ama luqadda hadday saa laba qof u sheekaystaan saasay isugu jawaabi karaan, saasay isdhihi karaan, ereygaa saasay isdhihi karaan. hadday mas'aladu aynan ahayn dad gaara inaad maagayso ama wax ugu xun aad ka sheekaynayso oo gaalnimo iyo diinad ama wax xun aad xayeysiinayso aynan ahayn, wixii luqada ee ka soo qaad saa haddii loo hadli lahaa, arrin saasa looga hadli lahaa, saa la dhihi lahaa, laba qof saa u doodi lahaayeen, saa haddii lay dhihi lahaa, saasay ka dhigan tahayoo taariikhda muslimiintu naxwadana waa ku jirtaa. fannigan maqaamaadka ee adabka ee luqada qofka lagu xoogeeyana taasayba ku salaysan tahay maqaamaat alxariiri, maqaamaat siyuuti iyo kuwa lamidka. billahi towfiiq. jazaaka allahu khayr aljazaa. su-aasha xigtaa waxay leedahay sheekhana diinta islaamku maxay ka qabtaa inuu qofku barto diimaha kale siiba diinta kiristaanka iyo baybalkooda si uu xogtooda wax badan uga ogaado? alxamdulilah. masalada kutubaha diimaha kala akhriskooda keliya ma aha. ama baybal ha noqdo, ama mid yahuud ha noqdo, ama mid hunduus ha noqdo, ama xataa mabaadida diineed ee kaleeto ee diimaha ka hadlaysa akhriskooda. laba arrimood bay u baahan tahay qofku inuu kala saaro. marka koobaad, adiga naftaadu waa raasamaal. baddan iyo mawjadan aad gelaysad akhriyaysaay waxaad la mid tahay qof ku dabaalanaya bad iyo webi bahalo badan, webiyo xaas lahoo jeeray ku jirto iyo baduu kalluunka iyo qarshiga ahaa iyo ku jiraan baad dabaalanaysa. ama dhul duuro waxaad maraysaa burcad iyo masas iyo libaxye iyo jiladgooye iyo isbaarooyin iyo yaallaan. marka saa darteed tanna waa xisi oo jirkaagii wey, tanna waa macnawiyo caqligaaga iyo caqiidadaadii iyo diintaadii iyo iimaankaagii waa. bannaanka markaad marayso waxyaabahaas jidadgooyada ah ma iska celin kartaa? difaacaagii ma wadataa? dhulkaa dheer haddaad maraysa zaadkaagii iyo difaacaagii ma wadataa? webigan haddaad gashay iyo xaaska iyo waxaad isaga dhigaysa iska celinaysa ma wadataa baad u baahanta. baabkan markaad akhriyaysana aqoon iyo macrifo diineed oo shubuhaadkan iyo hadalkan iyo tashkan aad iskaga celin karto waxooda aad ogaatidood ka hadashay ha kuu dambaysee horta adigu difaac ma leedahay. hadduu dhakhtar yahay waxaan ku harjay waktigii karoonaan ku jirnaa, dhakhtarku dad xanuunsan buu la macaamilayaa, soosanka ma soo xirto oo gacmaha ma soo xirto si uusan isaga fayruska iyo xanuunka ugu soo gudbin. adiga xanuunkaa inaadan la jiranin
horta diyaar garowgeedii iyo qalabkeedii ma qabtaa qofka muminkaa qofka biniaadamihii muslimkii si jirkiisa inuu ilaaliyo oo balaada uga ilaaliya looga baahan yahay loo yidhi laa yuradu mumridun calaa musixin ku jiran ku caafimaad qabayaan lagu darin fira min almajduumi firaaraka min alasad loo yidhi jirkaagii waxaa ka sii muhiimsan iimaankaagii iyo caqiidadaadii iyada lafteedu inaad ka ilaaliso wax jiran inaad ku dhex darto bahallaha inaad dhex geyso inaad waraabo dhex dhigto cudurro inaad dhex fadhiisa inaad ka digtoontaha lagaa raba halkaa markaynu basically ahaan isula fahanno qofkaagan aqriyayow dad jiran baad dhex gelaysaa meel cudurro aad gelinaysaa qalbigaagii iyo iimaankaagii meel bahalla aad gelaysaa waxaagii afkaa ku duuban lahayd ma qabtaa qalabkaagii caafimaad ma xiran tahay waxaad isku difaaci lahayd aqoonteedii iyo macrifadeedii iyo bisaylkeedii ma leedahay mise malihid baan ka bilaabaynaa su-aasha jawaabteeda haddii aadan lahayn kuma banaan inaad gasho lama ogola isbitaallada qof aan afduubnayn iyo meel galan hadda lama diido cuduruu gudbin karaa ama isagaa cudur qaadi kara sida laleeyahay adna laguma ogola haddaadan difaaceedii iyo diyaargarowgeedii aqooneed eed adigu ku badbaadi lahayd aadan lahayn akhriskeedu ma banaana waa markan taa ka soo gudubneed aqoonteedii leedahay aqoonteedii markaad leedahay haddana waktiguna waa qaali maxaad u akhriyaysaad u gelaysaabaa marka labaad iman haddaynan jirin baahi aad wakti ugu dhumiso iyo wax faa'iide leh oo aad rabto inaad ka soo hoyso waan iska akhriyaya maalayacni lama ogola iska akhriyaya maalayacni inaad naftaada khatartaa ugeed wax kastoo dadaasho qadar khatara waa jirtaa oo inaad saamowda oo dhakhaatiirtii aba cuduradii iyagii fayraska u dhimanaya iyagoo antibiyuutik qaadanayo wax isku dadayo bay u dhimanayaan cid kastoo badaha gashana waad aragteen qaybun buu qarshigu qaadaa masaskuna qaybun bay qaniinaan ciidanka dagaalamay ee taangiyada watana qaybun baa ku dhimata qayb wax kastoo diyaargadoowey riski iyo khatara way leedahay khatartaasi sabab faa'iide leh ood u gasho waa inay jirto waan iska gelayaa lama ogola dee lagu ciyaara nafta in caqli iyo caqiidada iyo iimaanka lagu ciyaaran lama ogola waa inay jirtaa hadaf iyo sabab aad u gelaysa iyo baahi keenaysa haddiiba dad badan galeen oo in ku filan taqaano oo iyagiiba banaanka la dhigay oo beerka laga xanshariyey adi baahi aad khatartan u gasho ma jirto anna waan geli ceelka biirta lama rabo sida darteed waa marka labaadee inay baahi jirto cudurdaar noqon karto oo qiil bixin karto inaad gasho bilahi towfiiq jazaaka allahu khayra aljazaa labada su-aal ee xigta waxay leeyihiin sheekhanaa qofkii salaad ku jira kadibna arka bahal dilaa ah ama xayawaan uu kaa cabsanayo inuu noloshiisa khatar u keeno salaadda ma ka bixi karaa midda labaad sheekhanaa qofka musqul dhexdiisa ku weyse qaadanayo bismi illaahi ma oran karaa intuusan weysada bilaabin alxamdulilah su-aasha koobaad hadduu qofku masale cusub ma ahano dee makhaatirta iyo khutuuradu aadamuhu weligood way jirtaa nas baa soo geli kara adoo tukanaya sida ninkii laga sheegay imaamka ahaae markii uu sujuudi lahaa meesha hore ku arkay mas duuduuban markaasuu fidaahiya xayatun tascaa uu ku celceliyey baa yihi waa ma socda midaan ogeyn oo gadaashiisa taagan baa yihi qaala khudhaa walaa takhaf sanuciiduha siirataha luula qabuu yihi ha cabsan ninkan aayadda ninkan uu garan laayahay wuu haystaa ninkana meeshan mas baa hortayda jiif uu dadka u sheegaya ninka tusahay waaye wuxuu yihi tacaala dakhud kaan adiga qabuu yihi maxaa noqotowle haddii ay timaado laba khatarood labadaba salaadda waa laga bixi karaa khatar adiga ku soo food saarta guri baa soo dumay ad aragtay dab baa meeshii ka kacay biyo duufaanaaba soo galoo ku soo fatahay mas baa kugu soo galay tuug baa soo galay waxyaalo badan bay khatarta naftaada waxa gelinaya gaari baaba fareenka intuu soo goostay baa guriga dukaankaad ku tukanaysa meesha agtaada aha soo galay
ma taagnaanoo salaad baan ku jiraa adiga gaari ku baro mayde inaad ka baxdaa kuu bannaan markay khatartu adiga kugu wajahan tahay waxaa kaloo kuu bannaan adoo carabaya inaad tukata salaatu alkhawf oo sujuudiya rukuucdina sii ishaartaa siina cararto baabu salaati alkhawfna oo kuu bannaanya inaad sii samayso waxaa labadaba kuu bannaan yihiin inaad ka baxda salaada kuu bannaan tahay hadday khatartu qof kale inay galaafato aad ka yaabayso ilmo yar baa socda jaranjaruu ka duuli rabaa qof indhoolaa socdoo jaranjariyo god buu ku dhici rabaa ilmo yar baa socdo oo mas iyo waxbaa qaniini raba iriduu furan buu ka bixi rabaayoo meel mootadii iyo basku waf leeyihiino uu ku dhici karo waxyaaba saas oo kaleeta ah meeshii dabbaaba ka kacay oo qof baa hurdinadu digto u baahan yahay hadday qofkay kala khatar halaag looga baqayo ay soo wajahdo inaad qofkaa badbaadiso salaadda waad uga bixi kartaa si aad soonkaba u furi karto inaad badbaadiso qof biyo ku dhacay oo in la soo qabto u baahan haddii kale salaadan soonkaygan ilaashan haddaad ado qofku biyaha la tegayaan su-aasha waa qaybta koobaad qaybta labaad musqusha anoo ku jira bismillaahi ma dhihi karaa waxay u baahan tahay inaan isweydiino musqusha anoo ku jira maxaad ka wadaa musqusha waa laba dhismaheedii baan ku jiraa iyo dhexdaan fadhiyaay waan kaga jiraa baa kala laba ah dhexda haddaad fadhida laa bisin walaa kalaam lama ogola ilaahayna waa u cadhoodaa qofka isagoo xaajo gudanayo bartanka kaga jira hadla oo sheekeeya maqaamkaana maqaamkeedii maaha haddii lagu salaamana calaykum salaam lama dhaho banaanka inti lasoo istaago asalaamu calaykum lagu dhaho maadaan musqushii dul fadhi oo kaadida ku dhexda kaga jira calaykum salaam di maya maqaamul kalaam ma aha labada qof ee ku sheekaysanaysa labada musqulada suxi ku kala jirana ama inta duurka xaajada gudashada baadiyaha u baxeen halkaa fadhiye habeen intuu mugdigu kala qariyey xaajadiina gudanaya kuna dul sheekaysanayana fa in allaha yamqutu calaa dalik ilahi u caradaabuu nabigu yiri sala allahu alay ali wasalam taa lama ogola hadalka maqaamkeediina ma aha haddaad dharkaaga xidhato xaajadiina iska dhaqdo aad weysaysanayso musqulma ku jirtaa mise kuma jirtid axkaamta musqushii meeshaad fadhiday weeye jiiraan baad la tahay xukmuljiwaar waay meeshii lagu xaaja gudanayay baad ag taaganta ma bannaan baa mise waa meel xidhan bannaan hadday tahay dee halka inaad ku kaadido xagga kalena u jeedsatood weysaysato bisinkana qabato dee iyadoo hadalba ma laha labadan xaala waxay iska shabbahaan halkaagiibaad taagan tahay oo lugahan baad wareejisay midna waad fadhiday ama waaba taagnayd oo taagni baad ku kaadiday ama waad fadhiday oo waad istaagtay kanna bannaankanaad godka ku kaadidayoo markaasaad xagga ugala jeesatay biyo haddaad xaggan ku weysaysata duulduulkaisu ku soo gaarino bannaankan ciidda ee kalaad ku weysaysanaysaa soo isla meeshii un taagnidu maaha tan bannaanka ishkaal ma laha tan xiran ishkaal ma yeelanaysaa mise ma yeelanayso intaan garanayo wax nas sharciga oo cad oo xaaraantinimeynaya halkaa bismillah inaad dhahda ma jiro keliya bisinkii waa lagu amray haddaad weysaysanayso wax kaa xaaraantinimeeya adoon xaajo gudanaynin oo dharkaagii qaba inaad bisin qabatana ma jiro cumar radiallahu canhu ardaahu baa musqul ka soo baxay isagoo qur-aan akhrinayo markaasaa ninku yidhi musqul baa ka soo baxaysaa qur-aan akhriyaysa wuxuu yidhi mooyadaaba adoo ciyaal yara waxaa kuu sheegtay nabiga xilligiisii baanu saa samayn jiray marka wax la diiday waa markaad xaajada kor fadhido haddiiba meesha dhexdeeda aad ku weysaysan oo qayb qabays leedahay qayb weyse leedahayna qaybtaa waa qabays qaybtan kor fadhigana waa musqul wax dhibaato ah ma laha waxna sharciga xaaraantinimeynayna ma jiro bilahi towfiiq jazaaka allahu khayr aljazaa waxaanu kusoo gabagabaynaynaa su-aasha ugu dambeysa su-aashan saa'ilku wuxuu leeyahay sheekhana maalmahan waxaa baraha bulshada lagu soo diraa message laleeyahay waxay ka socotaa nin riyada ku arkay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam laguna soo gudbiyaa tacliimaad waxyaabo la akhristo ama lagu xirsi xirto messajkaasoo kale diintu maxay ka qabtaa